waxaa maanta sharaf inoo ah inaan halkan ku soo dhaweyno wafdi ka socda xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre iyo wafdi ka socda wasaaradda caafimaadka ee dawladda federaalka oo Soomaaliya wafdigaas oo khubaro ah oo inoo keenay agab caafimaad oo aan ka guddoonnay maantana inta ay halkan joogaan soo booqan doona isbitaalka degmada Kismaayo xarumaha daweynta iyo daryeelka cudurka COVID-19 loogu talagalay iyo wasaaradda caafimaadka oo ay kula shiri doonaan wasaaradda caafimaadka iyo wasaarado kale oo Jubbaland oo ka wada shaqeynaya saamaynta uu ku yeeshay cudurkan COVID-19 bulshada reer Jubbaland soo dhawaada waa magaaladiinni baad timaadeen dadkiinni baad u timaadeen aad baan idinkaga mahad celinaynaa agabka caafimaad oo baahida weyn aan u qabno aad inoo keenteen waxaan si gaar ah ugu mahad celinayaa ra'iisul wasaaraha mudane Xasan Cali Khayre oo runtii hoggaanka iyo hawsha uu geliyay ka hortagga iyo u diyaar garowga cudurkan COVID-19 ay runtii wax badan ka bedelayso sida aan wax uga qaban karno iyo sida aan u badbaadin doono una badbaadin karno dad badan oo haddii kala u le'an lahaa cudurka waxaan fulinaa waajibaadka ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka Soomaaliya oo ah in si rab ah lagu gurmado coordination-kana loo adkeeyo loona saxo wixii gaab ah ee jira dhammaan maamul goboleedyada ee arrimahan COVID-19 anaga safarkanagu wuxuu daaran yahay hortana khibrad ka baranno oo la fahanno waxyaabaha u shaqeeyay reer Jubbaland iyo maamulka iyo dadkaba si aan wixii aan markaas uga macaashi karno ama uga faa'iido karno anaguna aan qaranka intiisa kale la wadaagno wixii anagu khibrad aan haynana idin la wadaagno inaan hubinno oo ogaano dadaalkiina wixii gaab ah ee ku jira oo wax ka tari karno dabcan meelihii aad tilmaantay inaan soo booqanno wixii agab ah oo markaa maqan oo dawladdu haysana aan isku dayno in la keeno wixii kale oo qacanta hadda ku jirina si lagu keeni lahaa falowgeeda aan galno arrinta kale iyaduna muhiimka waxay tahay COVID-19 dhinaca dhaqaalaha iyo bulshadaba si toos u saameeyay laftarkeeda inaan ogaano wixii impact ah ee COVID-19 ku yeeshay dhinaca dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada iyadana inaanu soo hubinno oo aan xog dhaba iyadana aanu ka helno waxaanu rajaynaynaa in safarkani weli maalin kaliya tan noqon doona inuu runtii na bari doono waxyaabo tiro badan oo aanu isleenahay waxbaa looga qaban karaya mujtamaca Soomaaliyeed dadka Soomaaliyeed gaar ahaan reer Jubbaland